caalamka ay runtii muran fara badan ka dhexdheliyay haddaba waxaan leeyahay deeqa kusoo dhawow marka koowaad TV-ga dalmar walaal waa mahadsan tahay waan dhawahay waana kaaga mahadcelinayaa deeqa afro sidaan hordhaca ku sheegnay video clip aad soo saartay dadku aad ay u hadal hayaan bal horta waxaad nooga warantaa marka koowaad sababta aad usoo saartay videoga iyo waxaad ka leedahay videoga dadku aad ka uga hadleen muuqaalkii ugu dambeeyay heestaadii dalmarow walaalo videogaas wuxuu ahaa video runtii aanan ku talagelin si aanan ku talagelin buu u dhacay si aan lagu talagelin baa loo duubay si aan lagu talagelina wuu ku baxay haddaba markaan usoo noqono markaad eegto haddaba bal reactionkii ka dhashay ama dadku fikir maxaad kaaga soo noqday markii dadweynuhu ay ka hadleen muuqaalkaas sheegtay inuu si khalad u baxay walahi qofba siba uga hadlay dadkeena Soomaaliyeedna waxaad moodaa inay shaqadii malaa'igaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu u idmaday inay horta kaga horeeyaan iyagu oo qabanayaan Ilaahay dhulkiisa isaga koonkiisa abuurtay dadkiisa abuurtay laqad khalaqna al-insaana fi ahsani taqwiim Ilaahay qofkii turjubaana Ilaahay uma baahna qofkii markaas xumaan arka ama wax ka dhiidiya waxa ku haboon oo kaliya inuu kaga hadlo si ixtiraam leh tarbiya leh bini aadamtinimo leh aqlisan aqoon ku dheehan tahay oo maskaxda dadka bini aadamka oo maskaxda waxa wanaagsan in la furfuro laakiin maskaxdaadu haday hal meel aragto oo hal wax ku dhigto dhibaatadeeda ay leedahay marka dadkeena Soomaaliyeedna runtii waxaan dhihi karaa mar allaala markii ay qofka khalad ku arkaan khaladkii ay qofkii ku ciqaaban iyagoo aad moodeen adduunka loo soo diro leeridiinta dadka ku ciqaaba qofkiina markaa dadka intooda badan dalmarow intii cariiqsadaan bay yiraahdaan madiinta laga leeyahay waa maya ma dalka laga leeyahay waa maya ma Soomaalinimada laga xiga waa maya ma dhaqan ba laga xiga waa maya haddaba wax ka daran buu qofkii ku fikiraa laakiin anigu taawan ka duwanahay subxaanallah inta aan joogay oo ama aan joogay wallahi inta boqol tilaabaan dib uga baxay waana la qaatay heestaasuna hees kadisay ahayd waxaan leeyahay Ilaahay turjumaan uma baahna adoonkii Ilaahayna laba dhex gale inagu ixtiraamkeena bini aadanimo iyo iska lumin deeqa markaad ka reebto reaction-ka ka dhashay adiga naftaada wax khatar ku ah oo ama dil lagu hanjabay heestan ha ahaato ama heesa ka horreeyba ahaatee iyagana maxaad ka leedahay thank you dalmar walaalo waxa jirtay heestan horta dad badan baa wax ka bixiyay waxaana u sheegayaa dadkii heestan ka falceliyay oo commentiyada khaldan ka bixiyay ama sida khaldan uga hadlay ama hanjabay dad badan baa hanjabay waliba qoraal igu soo hanjabay waxaan leeyahay horta dhamaantiin waa ida cafiyay sababtan idin cafiyayna waxay tahay waxa la yiri biyo meel godan waxa wax ka bilowdeen oo wax hawsheedii wax ka bilowdeen aniguna cududaar baan ka keenay tan waana tilaabadeena dib baan uga baxay in allaale intii heestan ka falcelisayna cafa aliye masaabax bay iga yihiin haddaan sii wata hadalkayga waxaa jirtay dalmarow cajilad la iigu hanjabay hadda ka hor 2 sano ka hor horta aniga noloshaydii horta anigu media anoo ka calacalaya ama anoo wax ka sheegaya ama anoo maxaa la yiraahdaa problem ka hadlaya lama arkin laakiin waxaan ahay gabadha kaliya oo Soomaaliyeed oo 2 sano dad aysan aqoonin garanaynin waxay yihiin waxay ka rabaanna ayaan garanaynin ay u hanjabayeen waxa jirta videogaas dalmarow adigana waan ku tusay asxaabigu dhown waan tusay
booliska Sweden waan tusay waxaa jirtay 2 nin oo indhaha soo duubtay oo runtii labada indhood ba iska soo xireen baaskoolad buu mudag hal mid baaskoolad gacanta ku haysta midna halkan buu ag fadhiyaa kan baaskoolada haysta hadlaya wuxuu leeyahay naya deeqa heesta wiir noocaas oo aad soo gelisay YouTube-ka oo magacaas leh waxa aad ka waday haddaad sheegi weydid biir dhowr saacadood gudahood baaskooladii buu furay 4 xabadood baa ku jirtay wuxuu yiri 4 xabadood iyo qaar kalaba inay kugu soo maqan yihiin ogow biir saasu xoog buu baaskoolada u xiray fiidiyowina wuu damiyay ajaradii baan qaaday 3 qof baan tusay booliiskan u geeyay arrintii way ku jiraan xitaa leerka ay isticmaalayeen iyo qaabkii baa la soo saaraya dadkan wax ka qarsoomaya male adduunkan ugu soo yaaciyo ma jirto bilaash qof la iskaga hanjabay ma jirto marka qof gabar maantay 2 sano hanjabaad ku socon karto oo maskiina ee fanaanada